السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن أصحابي مالكستو جوكتان كسو دوادا برنامج كيني هابين نمو وبرنامج كاينو كسو قد بنو معلوماتك ورركي ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay oo filayaa inaad si weyn uga bogateen barnaamijyadeennii subaxnimo iyo kii galabnimo oo aad ka hesheen macluumaad aad u xiiso badan. haddaba barnaamijkeena macluumaadka aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah Israa'iil oo la sheegay inay weerartay nawaaxiga magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan. haddaba yay beegsatay falcelinta ka timid arrintaas warbaahinta Israa'iil maxay ka yiraahdeen ma weerarkii argoosiga Israa'iil laga sugayay ayaa bilowday Hezbollah maxay war soo saartay Iran maxay war soo saartay haddaba xaaladihii ugu dambeeyay xiisadan oo caawa dhacday ayaanu barnaamijkiya intiisa badan ku faahfaahinaynaa wixii warar ee soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa haddii Allah awoodiliyo uu ka raali noqdo. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena waa barnaamijkii habeennimo. taariikhdu maanta waxa ay tahay 30 bisha Juulaay sanadka 2024. macluumaadka aanu barnaamijka habeennimo idinkugu soo gudbinayno qodobka ugu horeeya ayaynu ka hadli doonaa dhammaantii waxay noqon doonaan weerarka lagu qaaday nawaaxiga Beirut. haddaba sida aad la socotaan maalmihii la soo dhaafay waxaa aad u hanjabaysay Israa'iil waxay lahayd waxaan weerari doonaa Lubnaan waa ka aarsan doonaa Hezbollah saasaan yeeli doonaa waxa warkaasi wad Hezbollah waxay lahayd annagu ma nihin cidda dhalinyarada idinka laysay laakiin haddaan soo aadaan waan idiska kiin dhicin doonaa. adduunyada dhanna waxaa ka imaanayay hanjabaado maartay digniino aan iraado digniina ka imaanayay la leeyahay waxa kan yeysan weynaanin. marka waxaa la aaminsanaa Israa'iil inay wax u sameyn doonto inkastoo Mareykanka uu isagu diidanaa inay dagaal toosa ay la gasho Hezbollah laakiin waxa loo ogolaa Hezbollah madaxdeeda iyo waxa kan iyo inay ugaarsato iyo waxaas laakiin dagaal toosa inay caasimadda Beirut ku qaaday waxaas Mareykanku waa tuu diidanaa. haddaba caawa weerar ayaa dhacay weerarkana marka qaabku u dhacay iyo sida ay wax yihiin wixii laga qoray ayaan rabaa inaan idin la wadaago. haddaba Al Jazeera waxay leedahay ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhaawacantay qofna waa uu ku dhintay weerar Israa'iil ay ku qaaday magaalada Beirut. wariyaha telefishinka Al Jazeera wuxuu soo xiganayaa warbixinada dhinaca caafimaadka laga helayo waxay sheegayaan in weerar lagu qaaday nawaaxiga dhinaca koonfureed ee magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan. waxaana la sheegayaa in weerarka ay ku dhaawacmeen 6 qof oo Lubnaaniyiin ah oo mid ka mid ah la sheegay xaaladdu inay aad u daran tahay inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in ay dhimatay oo gabar ay ahayd. haddaba waxaa lagu soo warramayaa dhanka kale wakaaladda wararka ee Lubnaan inay sheegtay weerarka Israa'iil in uu ka dhashay sidoo kale dhimashada qof Lubnaani ah oo ay ku dhaawacmeen tiro kale. sidaas ayaa weerarka u dhacay ayaa la leeyahay. waa tahay marka weerarkan waxaa fulisaa la leeyahay warbaahinta diyaarad drone ah waxay rabtay inay khaarijiso sargaal sare oo ka tirsan Hezbollah. hawshaas waa fahmay marka waxaa leeyahay diyaaradda drone-ka ah way ku fashilantay ninka inay khaarijiso oo ay disho. sidaas ayaa maartay howlgalkii uga halaabay oo aysan sidii ay rabtay u fulinin ayaa la leeyahay sida warbaahinta ay qorayso. warbaahinta sidoo kale Israa'iil waxay ka hadlaysaa weerarkan maanta dhacaya talaadada oo caawa dhacaya in la sii qorsheeyay axadii weerarka la qorsheeyay Netanyahu markii uu ku laabanayay Israa'iil in marka hore weerarka qaabka ay u argoosan doonaan in ay qorshahan ku soo dareen.
haddaba marka waa sii gudbi doonaa warbixinada kale ee laga qoray sheekadan. hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waxay leedahay weerarkii wuu joogsaday, waxaana hadda laga warsugayaa dhanka Xisbullah waxa tallaabo ay qaadaan. hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waxay sheegaysaa in Israa'iil ay sheegtay inay soo gabagabaysay weerarkii, haddana la sugayo jawaab celinta Xisbullah ay ka sameynayaan weerarkaas. Israa'iil waxay sheegtay in Israa'iil in dhinaceeda weli aan la xaqiijin laga haynin ku saabsan howlgalkii dilka qorshaysan ee ay doonaysay inay ku guuleysatay iyo in kale. waxaana la sheegayaa in howlgalkaasi uu ahaa mid aan lagu guuleysan. haddaba waxaa lagu soo waramayaa mowqica la yiraahdo Bloomberg ee Mareykanka ka soo baxa isagoo soo xiganaya mas'uuliyiin Israa'iiliyiin in garaacidda la garaacay dhinaca koonfureed ee Lubnaan dawaaxigeeda ay jawaab u tahay Israa'iil weerarkii lagu qaaday oo Israa'iil ay dhowr jeer ku hanjabaysay deegaanka la yiraahdo Majdul Shams ee ku yaala dhinaca buuraleyda Golan la leeyahay. waa tahay marka waxaa leeyahay Israa'iil dhankeeda weerarku uu kasoo gabagaboobay argosiyuuna ahaa. hadda ka bacdi marka waxaa laga warsugayaa Xisbullah si iyaduna ay uga jawaabto oo maaragtay weerarka hadday ka jawaabayso iyo in kale. marka warbixinta weli dagaalka maalkan weerarkan laga qoray aad ay u tiro badan tahay. warbixinta caawa waxaa soo kale aan kusoo daraynaa qayb ka mid ah Netanyahu iyo golihiisa wasiirada markuu weerarka dhacay wixii lagu wargeliyay golaha wasiirada. Netanyahu waxa uu sheegay inuu uga digay golihiisa wasiirada inay ka fogaadaan, ayuu u sheegay inay wax warbixina dhiibaan weerarka ku saabsan Beirut lagu qaaday. wasiirada kulligood wuxuu ku yiri wax idinka aad miidiyaha la hadli kartaan oo warbixin aad dhiibi kartaan lama arko. hay-adda marka wararka u faafisa soo xiganaysa mas'uuliyiin Israa'iiliyiin waxay sheegaysaa in Washington ay fahamsanayd hadafka ama ujeedada la doortay ee la doonayay in marka Israa'iil ay ka fuliso nawaaxiga Beirut. haddaba Mareykanka waxaa la sheegayaa hore waxay uga digeen arinta in marka wax weerar ah oo ballaaran Israa'iil ay ka geysato Beirut. hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waxay leedahay Benjamin Netanyahu waxa uu uga digay golihiisa wasiirada inay wax warbixin ah ay dhiibaan oo marka ku saabsan Beirut. marka waxaa leeyahay Netanyahu ninkii ahaa wuxuu ku yiri wax wara oo aad bixin kartaan male, xaaladan gurihiina wasiirada waa maqlaysaan. midda labaad wuxuu yiri waxaa loo baahan yahay Mareykanka waxaa yiri uu la socday sheekadan in qorshahaas la fulinayo, laakiin Mareykanka wuxuu diidanaa dagaal weyn in lagu qaado Beirut iyo waxa kan iyo meelo waaweyn Israa'iil ay duqayso iyo waxaas ku soo horjeed. marka bartilmaameedka inuu qofka ahaa waa loo sheegay. haddaba qofkan la weeraray muxuu macnaa uga dhigan yahay Xisbullah? Iiraan se maxay ka tiri weerarkan ay qaaday Israa'iil iyadoo Iiraan dhowr jeer ay ku celcelinaysay hanjabaado? wararkaasi way noo soo socdaan, balse markan waxaynu ku nasanaynaa qadar xayeysiisa. waxaan nahay Gasasos Group, waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn, qurux badan. waa dalka Finland. dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah. sanad kastaana waxaad helaysaa 7 lacag la'aan ah, jiif, quraac iyo weliba jimicsi. Sona Hall Sports, goob lagu ordo iyo dabaal. dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo weliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah. waxaa intaasi ku sii dheer gaari bilaash ah oo ka soo qaada airportka. booqo website-keena oo nagala soo xiriir taleefanka iyo ciwaanka hoos ku qoran. ma tahay xirfadle ka shaqeeya ama danaynaysa inay ka shaqeyso qaybta daryeelka caafimaad ee loo yaqaan keerka kuna sugan dhammaan gobolada kala duwan ee dalkan UK? haddii ay jawaabtaadu tahay haa, xarunta Sana Careers waxay idin wadaa fursad aad ku heli karto shaqooyin keera oo kaaga mushaar badanaya inaad u shaqeyso ajensiya adigoo adeegsanaya adeega casriga ee Sana Careers. Sana Careers waxay ka caawinaysaa inaad hesho shaqooyin dhanka keerka sida hourly care, night shift care, live-in care, respite care iyo dementia care. kaliya waxaad u baahan tahay inaad booqato website-ka www.sanacareers.com oo aad iska diiwaan geliso kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kasta oo aad kaga sugan tahay dalkan UK.
ballanteenu waa inaad hore u gaadho saana keeraris waa tahay kulanti wanaagsan mar kale ee khiyaare meel kastoo aad joogtaan waxaan soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijkeena habeennimo macluumaadka ku saabsan weerarka ka dhacay Lubnaan ayaynu barnaamijka ku faaqidaynaa haddaba barnaamijkeena habeennimo waxaanu idinkugu haynaa warar ku saabsan ninka ay Israa'iil sheegaysay inay disho oo markaa weerarka ku qaaday nin noocu ahaa uu noo soo socdaa laakiin markan waxaan u gudbaynaa warbixinada qaybihii ka haray Iiraan iyo waxa ay ka tiri iyo waxyaabihii laga qoray haddaba joornaalka la yiraahdo Yadacood Axranood ee ka soo baxay Israa'iil wuxuu yiri mas'uuliyiin Israa'iiliyiin ayaa waxay soo cusboonaysiiyeen oo ay sheegeen in markaa baqdin laga qabo in Xisbullah ay ka falceliso waxa dhacay ama weerarka dhacay haddaba joornaalka Yadacood Axranood oo soo xiganaya mas'uuliyiin Israa'iiliyiin wuxuu sheegay inay markaa arintani laga baqayo in Xisbullah ay markaa soo ka falceliso wixii ka dhacay weerarkii lagu qaaday nawaaxiga koonfurta Lubnaan marka arintaasu Israa'iil markale ayay culays saaraysaa leeyahay ku saabsan cabsidii inay ku sii badanayso dhanka kale wakaalada wararka ee yiraahdo Tasniim ee ka soo baxda dhanka Iiraan waxay sheegtay in markaa ikhtiyaal lagu sameeyay ama isku day lagu doonayay in lagu khaarijiyo ninka ka tirsan sargaalka Xisbullah in uu markaa ku fashilmay Beirut nawaaxigeeda hadda wakaalada Tasniim waxay sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa mas'uuliyiin Iiraaniyiin in weerarkaasi xogta ay Iiraan hayso uu yahay mid fashilmay oo Israa'iil ay ku fashilantay inay ninka disho ninka oo markaa lagu magacaabayay Fuad Shukri ninka lagu magacaabo oo kamida saraakiisha Xisbullah ayuu kamid yahay waa tahay marka hawshaas marka halkaas maraysa Israa'iil marka waxa ku sii adkaanaya difaaci ay galaysay wixii dhici doona awala sheeko waxa u nusnayd nimankii Xuutiga waaba waayay baalbaal Xuutigi warkoodii iyo meel ay ka baxeen bahay sidii dekadii Xudayda loo duqeeyay dhowr jeer meelaha ku maqlay inay maraakiib iyo weerareen laakiin hanjabaadii ay sameeyeen marka laan soo salaamayna Tel Aviv wali laga hayo iyo inay qorshe la maagan yihiin oo ay la gaadayaan lama yaqaano laakiin arintan kale waxa leeyahay Iiraan waxa leedahay wixii ay rabtay Israa'iil way u suurgali waayeen sargaalka Xisbullah weerarkiisu waa ku fashilantay dhanka kale Israa'iil waxa ku sii adkaanaya cabsida maxuutiya Xisbullahiya makana dhowr aaga marka cabsido iyo difaaca ay kaga aruurtaa leeyahay marka arintan iyadu marka uma wanaagsana dhibaato xoog leh ayay sii gelinaysaa ciidanka Israa'iilna heeganka ayay ku sii badinaysaa leeyahay basha waa la arki doonaa Xisbullah say bal uga jawaabto arintan inkastoo dagaal weyn aysan ahayn hadda sida falanqeeyaashu ay leeyihiin weeraradii caadiga Israa'iil ay ku beegsanaysay dadkaas ayay maartay ku beegsatay ayaa la leeyahay qodobka ugu dambeeya ee shanaad ee barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa warbixinta ku saabsan taliyaha sargaal sare oo ka tirsan Xisbullah oo caawa la doonayay in lagu dilo nawaaxiga Beirut oo diyaaradaha Israa'iil ay markaa weerareen ninkaasu nin noocee ayuu ahaa haddaba Al Jazeera ayaa warbixin kooban ka qortay waxay leedahay macluumaadka ku saabsan ninkani taliyaha ah ee Xisbullah ka tirsan ee la weeraray Israa'iil ay weerartay caawa muxuu ahaa macluumaadkiisa mowqica ama wargeyska la yiraahdo Axios ee ka soo baxa Mareykanka oo soo xiganaya mas'uuliyiin Israa'iiliyiin ayaa wuxuu sheegay hadafka Beirut loo weeraray inuu ahaa nin la yiraahdo Fuad Shukri oo ka tirsan mas'uuliyiinta howlgallada militariga u qaabilsan Xisbullah haddaba mas'uul Israa'iiliya ayaa sheegay ninka Shukri la yiraahdo inuu markaa ku caan yahay magaca la yiraahdo Al-Haji Muhsin Madlub wuxuuna sidoo kale waxa laga raadinayay dhinaca FBI-da laftirkeedu way raadinaysay waxayna ku eedeynaysaa inuu ku lug lahaa weeraro iyo qaraxyo lagu qaaday ciidamada Mariniska sanadkii 1983 haddaba warbixinada waxay sheegayaan wakaalada wararka Reuters oo kale in garaacidda Israa'iil ay garaacday hadafka ninka meesha uu joogay la yiraahdo Fuad Shukri la leeyahay marka hawshaasi waxay ahayd mid aan la garanaynin
oo ninka sidaas ayuu ku badbaadaa leeyahay macnaha sida warbixinadii ugu dambeeyay ay sheegayaan. haddaba ninka la yiraahdo Fuad Shukri hawshiisa markaa halkaas ay maraysaa. nin xataa Mareykanku ay raadinayeen 1983 ciidamadii Mareyniska ee Lubnaan yimid qarax lagu sameeyay ayuu qayb ka ahaa leeyihiin. ninkan markaa nin FBI-duba ay googoobeysa waaye, sidoo kale Israa'iilna ay aad u raadinaysay. haddaba marka dadka khubarada ah markaan soo koobo caawa wixii dhacay waxay ku soo koobeen wax aan weynayn, sababtoo ah Israa'iil iyo Xisbullah inay isgaadgaadaan oo wax iska dilaan waa normal, waa caadi. laakiin waxaa laga baqayay Israa'iil inay inta qaadato xanaaqdo 12 qof aan ka dilay 100 qof 200 qof oo Beirut joogtaan laynayna. taasaa markaa waxaa leeyahay waxay keeni lahayd dagaal weyn. laakiin tan hawshii u socotay Xisbullah iyo Israa'iil qayb ka mid ah waa leeyahay, inkastoo wax weyn aysan hadda ka soo qaadin. mana amalaynayna dhaheen in arintan ay wax weyn keeni karto, sababtoo ah Iran laftirkeedu aad ugama hadlin oo macnaha Israa'iil inta xanaaqdo 100 qof 200 qof sida Gaza camal inay disho ayaa dadku dhan sugayeen. marka hal qof meesha ku dhintay, 6 qofna oo ku dhaawacantay, ninkaasna inay beegsanayeen waa marka hawl markii horeba u taalay. haddaba intaa ma ka sii dari doontaa xiisada, ma si kale ku dhamaan doontaa? barnaamijyadeena dambe haddii Allah idmo ayaan idinla socodsiin doonaa. inta aan markale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan, barnaamijka like gareeya oo share gareeya, sidoo kale barnaamijka subscribe-ka ka iloobin, YouTube-ka, Facebook-gana follow gareey. inta aan markale barnaamijka lamid ah ku kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.